Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena Gek Hikari. Soo dhawaada mar kale. Maanta waxaan idin hayaa masaajid lacago fara badan ku caawiyey qoys masiixiyiin ah oo ay ku dhacday musiibo aan la malaysan karin. Fadlan marka hore haddii aad nagu cusub tahay subscribe taabo, gambalaalkan sii taabo si ay kuu soo gaaraan muuqaalo kale oo xiiso badan. Jameecada ku xiran masaajidka Abubakar Al-Siddiq Al-Islamic Center ee ku yaala magaalada February ee gobolka Minnesota ayaa u istaagay inay caawiyaan qoys daris la ah oo la tacaalayay musiibo aan la malaysan karin. Inkastoo uu jiro farqi dhinaca diinta ah oo u dhexeeya jameecada iyo qoyska masiixiyiinta ah, qoyskan masiixiga ah, haddana masaajidka ayaa sameeyay guddi la shaqeeya in la caawiyo. Kadib markii wiil ay dhaleen uu ku dhintay si qayrul caadi ah, halka mid kalena uu soo ritay xanuunka kansarka. Wiilkan oo dhintay bishii December ayaa cunay raashin loogu talagalay bisad qoysku ay xanaanaysanayeen, arrintaasi oo sababtay geeridiisa. Cunuga kale oo da'diisa lagu sheegay 10 jirka ayaa isagana aad ula ildaran kansar awood badan oo halis gelinaya naftiisa. Muddo 1 saac gudaheed ah ayay culimada masaajidka aruuriyeen $10,000 iyagoo sidoo kale u duceeyay qoyskaasi. Lacagtii la aruuriyay ayaa lagu sheegay inay gaarayso $6,000 Mareykanka ah. Qoyskan aan muslimka ahayn ayaa waxay caawimaad weydiisteen mas'uuliyiinta masaajidka. Sheekh Cabdulfataax Sheekh Cumar oo ah maamulka masaajidka ayaa BBC-da u sheegay inay caawimaaddan uga gol leeyihiin si ay u dareensiiyaan qoyskan in diinta Islaamku tahay diin naxariis iyo nasteexo. Runtii dadku ma malaysanayaan inay muslimiintu caawin karaan masiixiyiinta, balse waxay ku noqotay arrin aad u la yaab leh. Waliba dadka xoogga uga falceliyay waxa ay u badnaayeen dadka caddaanka ah, ayuu yiri Sheekh Cabdulfataax. Waxa uu sidoo kale sheegay inay ahayd markii ugu horreysay ee ay sameeyaan caawimaad noocaasi ah, isagoona mas'uuliyiinta kale ee masaajidda ku booriyay inay taakuleeyaan dadka haysta diimaha kale. Taasi oo u sababeeyay inuu suubanaha nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu sidan sameyn jiray, si uu dadku u dareensiiyo naxariista iyo nasteexada Islaamka. Nabigu dad aan muslimiin ahayn ayuu intaasoo neef u qali jiray una soo dhaweyn jiray. Aniguna waxaan ku boorinayaa masaajidada kale inay ka warqabaan dadka dariskooda ah, ayna muujiyaan inay wax caawin karaan, ayuu yiri. Faribolt oo ah magaalo yar ayaa waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 23,000 oo ruux. Haddaba dhageyste, su'aasha aan ku weydiinayo ayaa waxay tahay, adigu ma caawin lahayd dad aan muslimiin ahayn? Masaajidkiisa ma ku saxan yahay arrintan mase waa ku khaldan yahay? Fadlan fikirkaaga nala wadaag, nooguna soo qor qaybta commentiga. Mahadsanid.